akhyaarta hawada nagala socota meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad inoo maqlaysaanba kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada ee caawa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of Oslo. waxa aan kaga hadli doonaa caawa oo aan garanay in aan ka hadalno maadaama shalayto hay'adda xanaano ay lacag u aruurinayso dad aqoon ah ayaa waxaan door bidnay maadaama qaybta Facebooka dad farba ay ku xirnaayeen ayaan shalayto qayb kamid aan qabanay laakiin caawa waxaan ka fursan weynay in qaybta raadiyaha aan barnaamijkaas u qabanno maadaama idaacadda Voice of Oslo ay la hadasho dadka Soomaaliyeed waddanka Norway barnaamijyada ka baxana idaacadda Voice of Oslo ayaa iska leh qadka taleefanka waxaa ku jiro Cabdi Tahliil Maxamed oo kamid ah xubin kamid ah hay'adda xanaano ayaa had taleefanka ku jiro Cabdi Tahliil kusoo dhaw idaacadda Voice of Oslo habeenkan caawa ah aad iyo aad ma astawraalo dhawa waa tahay bal khadkii ugu jir waa tahay heestii halkaa inoo socoto usoo laabanayna daqiiqad yar wax yar waa tahay khiyaarta hawada nagala socota meel kastoo aad joogtaan iyo si kasto aad inoo maqlaysaanba habeenkan caawa ah ha inoogu bilowdo hana noogu dhammaado farxad iyo damaashada diyaaridmo gudaha iyo daafaha caalamkana hambali iyo salaan ayaan hawada idiin soo marnaynaa meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad inoo maqlaysaanba waa tahay barnaamijka ayaan gudagalaynaa ee arrimaha bulshada hay'adda xanaano qof ka socda oo lagu magacaabo Cabdi Tahliil Maxamed ayaa khadka taleefanka ku jiro maadaama hay'adda xanaano ay lacag u aruurinaysay shalayto dad ilmo agoon ah ayaan bal waxaan rabnaa su-aalo dhowr ah inaan bal weydiino hadda waxaan filahayaa Cabdi Tahliil inuu si fiican ii maqlo aad iyo aad baan ku maqlaa dhawa aad iyo aad baan u mahadsan tahay marka hore waxaan u mahad celinayaa runtii adiga iyo gaar ahaan raadiyaheennaba sida fursadda wanaagsan aad noo siiseen shalana aad noola shaqaysay caawana aad sidoo kale raadiyaha aad naga wareysanaysid runtii bulshada Soomaaliyeed waxa u haysaan shaqo ah innaba caadi ahayd oo wax badan baan raadiyahan anigu aan dhegaystay waa raadiyo ay ku xiran yihiin dad badan bulshadana u qabataan runtii shaqo wanaagsan oo aad iyo aad aan lasoo koobi karin waxqabadkeeda marka aad baan kugu mahad celinayaa aniguna waan dhowahay mahadsanid su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxaa weeye hay'adda xanaano waxaa aad loogu yaqaanaa caawintii abaarihii ku dhuftay dalka Soomaaliya sidoo kalena fatahaadii ka dhacday meelo kamid ah gobolada Soomaaliya ay markaasi ay caawisay 2001 sidaas oo kale abaar noocaas oo ku dhufteen Soomaaliyana markaasi ay caawin sameysay oo markaasi aan idaacadda Voice of Oslo qayb kamid ah walaashan ay ka qayb qaateen Cabdullaahi Daawud ayaa markaasi barnaamijkaasi noo sameeyay aad baan xasuustaa bal waxaan ku weydiin rabay hay'adda xanaano qorshihii shalayto ahayd lacag loo aruurinayay ilmaha agoonta ah sababta lacag loo aruurinayay iyo hadafka u dan leedihiin bal marka hore dadka ka dhigaysa idaacadda Voice of Oslo bal la wadaag barnaamijkan caawa ah walaal aad baa mahadsan tahay waa su'aal runtii aad iyo aad u wanaagsan sida caadada xanaano waa urur soo jiray intii muddo
adiga 10 sano iyo 12 sano ilaa hadda madaxa la gashay intaasna maalinba meel bay xaaladeedu soo maraysay maanta waxay maraysaa maas leenahay meeshu ugu wanaagsanayd sida aad hadda markii hore carabaabtay dhowr jeer ayay masiibooyin ka dhacay dalka Soomaaliyeed oo noocyo kala duwana ay ka qayb qaadatay waxaan oran karaa 4 jeer oo lacaga loo aruuriyey dad masiibooyin soo food saareen oo dalka ummadda Soomaaliyeed daafeeda kala duwan haddaan carabaabo meelahaas waxaa ka mid ahayd abaarihii dalka Soomaaliya oo dhan ku dhiftay oo ummadda Soomaaliyeed u gurmatay ayay kow ka ahayd waxaa ku xigtay daadadkii qaaday gobollada Hiiraan waxaa kaloo sidoo kaleeto loo aruuriyey kilinka shanaad mar ay dadka Soomaaliya halkaas ku nool u dagaal dhex maray dadka kaloo la degay ee Itoobiyaanka oo ayaguna aad soo barakacay marka qaababkaas ayaa ka mid ah dhaqaalihii ay aruurisay uga qayb qaadatay ummadda dadweynaha Soomaaliyeed haddaan su-aashaada usoo noqdo marka annagu sida waxaan nahay hay-ad oo xaq u leh inay aruuriso sida reerda kooshka oo kaleeto oo kumbooyinka iyo xaq u leh inay wax aruurin karta mar kasta oo ay doonto marka codsiyo ayaan samaysanaa xilliyadii aan fursad helnoo kaleeto si aan tabracaad ugu samayno agoonta marka actionkaas ayuu ka mid ahaa actionadan badanaana waxaan actionada qaadnaa marka bisha ramadaanka ee karaamaysan ay soo dhowdahay oo kaleeto si mataqaanaa ilmahaas agoonta ay u helaan dhaqaalo wanaagsan sida farxad ciid oo kaleeto ay u farxaan iyo dadka ula ciidaan iyo qaabkaas ka mid ah waa gartay sidee ula xiriirtaan degmooyinka ka baxsan magaalada Oslo iyo gobollada maadaama dadka badana Oslo degan iyagu sandarada socod ay ku maraan oo markaasi marka laga reebo meelaha dukaamada iyo meelaha kafeega laga camalka laga reebo marka qaab noocay ula xiriirtaan dhinaca gobolladoo kaleete marka lacag nooca camal la aruurinayo oo ilmo agoon loo aruurinayo amaba dad dhibaataysan loo aruurinayo waa sidee xiriirka dhinaca gobollada ee dalka Norway runtii qaabo kala duwan baan ula xiriirnaa marmar way dhacdaa inaan dad annaga naga mid ah ay tagaan gobollada qaarkood oo sida hadda Oxford oo kaleeto ay Oxford uga sameynayeen shalay oo kaleeto uga sameeyaan badanaa waxaa samaynaa sida ururada caadiga ah oo kaleeto sida hadda rooda kooshka oo kaleeto markay Oxford ay samaynayaan waxay sameeyaan codsi waa marka hore waa la sameeyaa annagu codsi maynu samaysanaa meelihii aan codsi u helno oo ogolaasho ka helno ayaan kaliya ka samayn karnaa meel walba kama samayn karno nidaamkuna saas weeye ururada waxaa ugu dhan badanaa nidaamkoodu waa sidaas annagu markaa shalay oo kaleeto oo sida kaliya ka samaynayn haddii aan doonayno inaan ka samayno gobollada kale waa inaan sidaas kale codsi samaynaa dad ama meeshaas degan aan la xiriirnaa ama annaga qaybka naga mid ah ay meelahaas tagaan sidii ay hawshaas u hirgeliyaan waa gartay maadaama lacag aruurin ay tahay ma laga yaabaa oo ma dhici kartaa in aad qabataan tartan kubadda cagta ah maadaama dhalinyaro fara badan ay rabaan inay kubadda ciyaaraan dhinaca kalena aad markaasi aad samaysaan lacag aruurin ma dhici kartaa maadaama inta badan ramadaanka aan aragno koobab kala duwan oo ka dhaca magaalooyin kala duwan ka baxsan magaalada Oslo sida Drammen oo kaleete iyo weliba Kongsvinger oo kaleete dadkaasi markaasi soo xilqaamo oo koob noocaas dhigtaan laakiin idinka ma laga yaabaa inaad koob Oslo ku qabataan oo markaasi aad sidaas lacag ku aruurisaan oo ilmaha agoonta iyo dadka waxba haysan lagu aruurinayo والله فكر wanaagsan laakiin anagu iskumaan deyn hadda ka hor fursaduna maalin walba
way furan yihiin oo maalin walba fakar iyo dadku markaad heshid fakar ma kugu soo siyaadaya mar walba laakiin anagu sida caadiga horta waxaan u shaqaynaa waa agoon agoontana si walba ay wax ku heli karaan waafaqsan diinta islaamka waafaqsan oo wax ugu raadin karno ama wax ugu aruuri karno waan samaynaa laakiin waxaan iska ilaalinaa mar walba waxyaalaha aan waafaqsanayn diinta islaamka ama agoonta ka hor imaanaya ama dhib u keenaya runtii aad iyo aad baan uga fiirsanaa wixii markaas annagu aanan khibrad u lahayna culummadan badanaa la kaashanaa soomaaliyeed ee dalka jooga ayaan la kaashanaa wixii markaas nooga aadan si aan mataqaanaa aysan mugdi nooga gelin ama wax kaloo aan noo samayn marka laga hadlo hay'adda xanaan markii la dhaho oo markaasi ilmo aqoon la caawinaya ma iskuulaad ilmaha wax ku bartaan ayaad ku caawisaan mise nafsadoodii ahaan noloshoodii ayaad caawisaan mise waa ilmo meel gaar aad ku haysaan oo markaasi aad ka warhaysaan siyaabo kala duwan baa loo caawiya walaale ilmuhu waxay dhigtaan iskool baa laga bixiyaa nafaqadooda dhaqaalahooda guud ee noloshooda nolol maalmeedkoodaan bixinaa dugsigaa laga bixiyaa waxaa la bixiyaa muxuu ahaaye dharkooda ama uniformkooda sida mataqaanaa iskoolka ilmuhu markay dhiganayaan gareedyo kala duwan bay ku jiraan uniformyo oo kala duwan bay qaataan marka qaababkaas oo dhan baan u caawinaa waa gartay marka maadaama aad ka hadashay aad dhibaatooyinka jira aad culummada aad idinka caawiyo markaasi aad la kaashataan sidee marka lagu gaarsiiyaa meelaha aan dowladda ay gacanta ku hayn oo kaleete iyo meelaha kaleeto meelaha sida maamulada oo kaleete sida maamulka isku magacaaba somaliland oo kaleete maamulada kaleete sidee iyagana loo gaarsiiyaa maadaama ilmihii aqoonta ee dalkii soomaaliya ay ku baxsan yihiin runtii su-aasha waa su-aal wanaagsan anagu horta badanaa waxaan ka shaqaynaa ama ka fulinaa arrimeena meelaha nidaamku ka jiro sida dowladda federaalka oo kale meelaha ay ka taliso maamulada kala duwan federaaliga meelaha ay ka taliyaan ee nidaam ka jiro ayaan badanaa ka fulinaa meelaha dowladdu ka talisana dowladdan kala xiriirnaa meelaha oo maamul goboleedyadu ka jiraana maamul goboleedyada ayaan hoos tagnaa guddiyadii ama nidaamkii agoomaha iyo qaabkii ayagu markaas ay yidhaahdaan ay ugu soo xilsaaraan ayaan u qaabilnaa waa gartay marka ma laga yaabo marka mustaqbalka ilmahaasi markii ay weynaadaan in markaasi xirfado ay ku shaqaystaan ama laftooda ay dib ugu howlgalaan xaruntaasi ma dhici kartaa arrimo noocaas bay qorshaysan yihiin waa fursadaha furan walaalo fursadaha furan bay ka mid tahay ilmaha hadda adiga ilaa 12 baa hadda waxay way dugsiga sare jaamacad bilaabeen qofkuna markuu saas kale wax ku barto muxuu ahaa kama marnaanayso hawshaas oo kaleeto inuu ku dhiiranaado ama uu beri noqdo qofkii hawshaas la wareegi lahaa marka way nagu jirtaa programku way nagu jirtaa hawlahaas oo kaleeto insha allah alkariim inay fulaan waa gartay tusaale ahaan ilmahan aad agoonta ah ilmo markaasi waalidkoodii hooyadood aabahood dhinteen miya mise waa waxa waaye caruur aabahood dhintay oo agoon ah oo markaasi hooyadood gacanta ku hayso oo markaasi dadkii familkoodii kale iyo qaraabadii kalena ay ka warhayaan maadaama inta badan hay-adaha ay gacanta ku hayaan ilmo aan waalidiintooda dhan aan nooleen dad markaasi qaraabadooda markaasi lagu raadiyo oo aragno oo dhibaatooyin markaasi hor leh oo hortaagan hay-adaha kale ay yihiin waa siyaabo kala duwan ilmaha qaar waxay hooyadood baa haysato oo kaleeto qaar waxa weeye qaar aan hooyo aabba lahayn oo hayo adeer ama hayo ka mas-uul yahay ama eedda ka mas-uul tahay ama habaryar ka mas-uul tahay marka qaabka ilmuhu ay yihiin qaabkaasay u kala baxaan waa gartay bal waxaa ku weydiin raba marka markii loo soo laabto magaalada oslo qeete
tusaale ahaan meelaha inta badan laydin ogolyahay ka sokow xiriir noocee idinkala dhexeeya ka hay-ada ahaan xanaano iyo meelaha maraakiista sida maktabadaha iyo sida dugsiyada qur-aanka oo kale iyo masaajidada oo kale iyo xiriir noocee idinkala dhexeeyana xanaano waxa weeye anagu masaajidin maraakiista oo dhan la shaqayn guud baa naga dhexaysa tusaale ahaan markii lacaga la aruurinayo oo kaleeto ummadda soomaaliyeed guddigii markaas ay soo xuraan hawshaas u istaagaya iyo maraakiista oo ayaguna gooniya iyo annagoo xanaan ahaan ka soconna ayaa hadda hawlihii hore ee la geli jira lacagihii hore oo la aruuriyey ayaa si guud lagu hawlgala ayadoo saddex geesoodkaas marka maraakiista annaga waxaa naga dhexaysa runtii tixgelin wanaagsan iyo la shaqayn wanaagsan aad iyo aad baana muxuu ahayay ugu mahadcelinaynaa mar walba la shaqayn wanaagsan oo ku saabsan is-aaminid iyo istixgelin ayaa naga dhexaysa waa gartay maadaama tixgelin iyo wada shaqeyn ka dhexayso marka sanaadiiqda la qaadanayo ee lacagta la aruurinayo oo kale tusaale ahaan dadkan iyagu lacagta aruurinaya soo ma ahan dad iyagu iskooda isku xilqaamay oo iska xooqabsaa maadaama dad fara badan laga yaabo in ay shaki ahaan ay u qaataan in dadkaasi kalarada kala duwan ee garnada qaba inay yihiin dad iyagu lacag ku qaadanayo oo kale waa ka horta qof la qasbayaa ma jiro qofku markuu hawl qabanayo waa inuu asagu uu diyaariya inuu hawsha qabtaa tan labaadna waxa weeye qofku hawshii asagoo diyaara inuu qabto ayuu haddana wuxuu ku fulinayaa si nadaama iyo si gudniyadaas kala duwane ay u falanqeeyaan ay u arkaan hawshaa sida ugu wanaagsan ay wirgeli karto ma ahan qofku maadaama hawshii aan qabanaya haddana wax aniga maskaxdayda ka soo baxay ayaan samaynayaa marka annagu inta aan u leenahay khibrad ee hadda lacagihii hore oo aan kaaga soo sheekeeyey ee la aruuriyey qaabka lagu aruuriyey waxay ahaayeen in markii hore laga soo wada tashaday oo sida hadda saddexda geesoodkaa kuu sheegay guddigaas oo ummadda soomaaliyeed dooratay xanaano iyo maraakiista inay markaas ay soo farqeeyeen qaabkii wax loo aruurin lahaa kabacdina markaas dadkii guddiga ee doorteen hawshaas ay ugu hawlgaleen qaabkii ugu wanaagsanayd ee la yiri muxuu hawshaas waa ku fuli kartaa marka sidaasay ahayd waa gartay marka shirarka la gelayo oo kaleete ka shirar ahaan xisbi ururka xanaan oo kaleete tusaale ahaan ma bil kadib bishii hal mar baa la shirtaan mise isbuucii mar baa shirtaan mise sanadkiiba 2 jeer baa la shiraa horta waxay ku xiran tahay hawsha aan qabanaynay ku xiran tahay waxna waa wax mataqaanaa oo joogta ah waxna waa wax oo yimaada mar walba ku saabsan hawsha noo taala iyo waxaan qabanayno marka badanaa sida horta sharci ahaan ah xanaano bishiiba waa inay mar shiraan haddana ayagoo sidaasa waxay ku xiran tahay hawsha markaas la qabanayo sida markaan hadda akshuunadan oo kaleeto aan samaynayno waxaa laga yaabaa bishii inaan shirno 3 jeer 4 jeer inaan shirno laakiin sida nidaamka iyaga ku qoranba waxay tahay ugu yaraan bishii hal mar in la shiro oo wixii qabsoomay iyo waxa qabsoomi doona iyo waxa la qabanayo la faraqeeyo waa gartay dad badan baa waxa ay sanadkii hore isla dhaafayeen in isla dhex marayeen ay sheegayeen in ay jirtay guddiyo iyagu abaarihii wax ka aruurinayay oo markaasi idinkan xiriir idin lahaa marka guddiyada noocaas camal ah iskooda isku magacaabay iyo kuwa kaleo markaasi idinka idin hoos yimidba soo ma ahayn in guddiyadaasi noocaas oo kale inay wada shaqeeyaan oo markaasi ay noqdaan
dad hal meel uun wada shaqeynayo oo hal meel wax wada diray maadaama dadku ay cabasho gudbinayeen sanadkii hore cabashooyin badan baa timid laakiin inkastoo markii dambe cabashadaasi hay-adda xanaan ay xalisay su-aashaas adoo raalliya maanan fahmin haddaad ku celisida macnaha guddiyo waxaa jireen markii ay arkeen dhibaatadii ka jirtay abaarihii intii aan loo imaanin xanaano markaas iyaga isxilqaameen kadibna ay bilaabeen inay lacag aruuriyaan kadibna iyaga laftooda lagu xiray inay haystaan ruqsad ay lacag ku diri karaan meel ay ku diri karaan waxaana igu maqaal ah in idinka laftiina ay la soo xiriireen oo markaasi ay noqdeen guddi markaasi hoostaga hay-adda xanaano sida markaasi aan maqlay hawshaas arrintaas waa arrin igu cusub aniga waa waxaan hore u maqlay maahan annagu qaabka aan wax ku fulino haddaan lacag aruurino iyo haddaan nidaam samaynana kow waa inuu ahaado horta qaab sharciyeysan dhowr siyaaboodna u sharciyeysan kow annagu wax kastoo aan fulinayno waddankan annagu aan joogno sharcigiisu waa naqabanaya waana ilaalinaa nidaamka iyo dastuurka iyo hay-adda qaabka ay ku dhisan tahay iyo dastuurka ay ku dhisan tahay annagoo ka duulayna sharciga tixgelinaynana waddanka aan joogno nidaamkiisa iyo sharcigiisa oo hay-ad kasta waxa ay aruuriso si qaab sharciyeysan inay ku baxaan ayaan mar walba waxaan samaynaa inaan wax sharciyeysan wax ku aruurin lacagihii haddaan matalanaan kuu soo qaado hore aan kugu sheegay oo kaleeto annagu kuu soo aruuray accountka xanaano si nidaam iyo si sharciyeysan ayay ku baxeen guddigii mas-uuliyadda hayay ayaa qaabkay ku soo aruurtay iyo intay ahayd iyo sida ku baxdayba la socday step by step kabacdina qaabkii ay u gaartay meesha ayadoo la soo xisaabiyey oo ribood xisaabeed laga soo gudbiyey ayay soo noqotay qaabkay ku baxday marka annagu mar walba waxa annagu aan samaynayno waa inay wax sharciyeysan yihiin ka sharciyeysan waddankan aan joogno hadhowtana meesha la geynayo ay noqoto meel xisaab ka soo noqonayso oo dadka jooga lala xisaabtamaya qaabkii lacagtu u baxday waa gartay laba su-aal ayaa igu ka harsan oo aan ku weydiinaya su-aasha horta waxaa weeye horta marka hore ku mahad celinayaa waqtiga qaaliga ah ee habeenkan caawaa nala qaadatay cabditaaliil maxamed waxaan ku weydiin rabay su-aal ah talo iyo tusaale dadka soomaaliyeed haddii maanta habeenkan caawa ah aad u simirsanaysid cadda voice of codsi aad ka codsanaysid iyo talo aad usoo jeedinaysid maadaama hay-adda xanaan ay u taagan tahay in aqoonta ay caawiso waxyaalo fara badan ay ka qayb qaadatay sida abaarihii iyo weliba fatahaadihii ka dhacay soomaaliya runtiina dhammaantiin waxaad leenahay jazaakum allahu khayran marka bal barnaamijkan su-aashiisa waxaan kusoo xiraynaa bal codsigiina ay hadda xanaano iyo haddii markaasi talo iyo tusaale waa noo soo jeedin kartid baan horta adiga ugu mahadcelinaya iyo raadiyihiinaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa ummadda reer norway runtii codsigaan usoo jeedinaya wuxuu yahay annagu waxaan ku dhisannahay ummadda soomaaliyeed annaga norway nama caawiso dadka na caawiya ee aan taageerada ka helno xanaana ay ku tiirsan tahay ama ku dhisan tahay waa ummadda soomaaliyeed dad badan oo waxaan leenahay oo meel leema dad badan oo waxaan leenahay oo agshuunada markaan samaynayna ka qayb qaata dad badan oo waxaan leenahay intaas oo jeer talooyin iyo tusaale noo soo jeediyey marka maskixihaan iyo nidaam ahaan iyo dhaqaal ahaan waxaan ku dhisannahay waa ummadda soomaaliyeed marka runtii aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ummadda soomaaliyeed ee reer norway meel kastoo ay joogaan kuwa meel leemka nagaa
kuwa maalin walba nala shaqeeya kuwa mar walba talada iyo tusaalaha noo soo jeedinaya waxa weeye lama soo koobi kara runtii mahadda iyo ammaanta aan u hayno kuwa kale aan aqoon xanaano ama hore aan u maqal ama aan la soco nidaamkooda iyo systemkoodana waxaan leeyahay caaway waa dii baahanaa walaalayaal soomaalidu waa isku baahan tahay qof waliba ee soomaaliya waan muxuu u baahanaa taageeradiisa iyo taladiisa iyo tusaalihiisaba waxaana aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa mar labaad raadiyahayna iyo adiga shaksi ahaan sida wanaagsan ee aad noola shaqaynaysay ilaa iyo shalay ilaa iyo caaway runtii lama soo koobi karo mahadda iyo ammaantaan ku hayno aad iyo aad baan ku mahadcelinaya waa maastahay su-aashii udumeysa ii boobtay bal idaacadda voice of oslo 10 sano ayaad buuxinaysaa sebtembar 16 haddii alla insha allah oo markaasi dhowr bilood ay kaarsan yihiin weliba marka ay markaasi ay buuxinayso 16 bisha sebtembar ay buuxinayso isbuucu ka hor markaasi dhowr 10keeda ama 20keeda ama 15keeda ama 10keeda meelaasna waxaa dhici doona doorashooyinka golaha deegaanka ee waddanka Norway ayaa dhici doona oo ayadana waxay noqonaysaa laba farxadood oo isku qaadan doona noqon doontaa tobankaas sano oo aan hadda fooda gelinay 2009 ayaan soo bilownay barnaamijyo badan baa idaacad ka baxay waryaal badan bay lahaayeen ka idaacad ahaan maadaama ana ay mahad celiso kumaasan tahay aad baa umaasan tahay marka ka idaacad ahaan ma loo baahnaa idaacad soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed dalkan Norway ay leedahay oo habeenkan axadda ah iyo habeeno kaleba soo gashaba insha allah aan rajayn doono insha allah soo gashaba iyo weliba inay markasta soo gasho habeenkasta soo gashaba haddii markaasi shuruudihii aan buuxino haddii aan la idmo sidee u aragtaa idaacadda voice of oslo in markaasi 10 sano ay buuxisay adigoo markaasi idaacadda voice of oslo sida ay tahay iyo qaabka ay Soomaaliya ula shaqeynayso iyo weliba adiga markaasi fikirka taladaada isku darsan kartid ba bal kusoo dhawo bal habeenkan caawa ah wallahi marada ku mahadcelinaya horta Soomaalidu waa u baahan tahay idaacad sida voice of oslo kaleeta oo ku shaqaysa madax banaani cadaalad ku dhex jirta ummadda Soomaaliyeed fakarkooda iyo waxay aaminsan yihiin soo gudbisa anigu wax badan baan dhegaystay idaacaddaada doodo badan oo dadka u soo bandhigtay oo looga qayb qaatay oo siyaabo kala duwan ama mid siyaasadeed ama mid mataqaana nidaam ahaan waan dhegaystay dhowr jeer baan dhegaystay weekendka anigu waxaan wadaa bas baan wadaa marka weekend sabtiga soo gashaa baan u malaynaya sabtiyo badan baa saartaa raadiyo markii weekendka baska wadaa xataa madadaalo badan baan aad iyo aad baan ugu madadaashaa runtii si markii aad doodaysaan oo kaleeto ama doodaha soo bandhigtid marka raadiyihiina runti dad badan baa ku xiran oo kana faa'iidaystay qaabo badanna waa loogu baahanya ummadda Soomaaliyeed baahi weyn ayay u qabtaa raadiyo sidaan oo kaleeta oo bulshada u soo gudbiya waxa ay aaminsan yihiin iyo nidaamka ama siyaasad ahaan ama bulsho ahaan nolosha waddankan aan degannahay marka raadiyihiina aad iyo aad baa loogu baahan yahay leeyahay waxaana odhan lahaa runtii shaqo wanaagsan oo aan inaba la soo koobi karin ayaad u haysaan ummadda Soomaaliyeed 10 sanana haddaad buuxiseen waa dadaasheen oo Soomaalidu waxa lagu yaqaana waxay tahay sanadiyada wax wadaan inay daalaan marka idinku ma daalaysaano waxaan oran lahaa 10 sano 10 kaloo sano ka bacdina inaan is wareysano haddaan nool nahay waa laga yaabaa insha allah alkarim aad iyo aad u hoostahay dad fara badan baa kolley lafteeda shakhsiyadeeda igu dhahaba madaalaha raadiyaa tahay iyagana waa maasan yihiin adi laftaada maasan tahay idaacadda voice of oslo 10 sano ka badan insha allah way jirta insha allah inta qof Soomaali ah oo dalka Norway joogo insha allah taas
ayaan insha allah ku raja weynaya insha allah si gaar ayaan kolley kuu mahad celinayaa adiga cabdi tahliil maxamed ah si guudna waxaa u mahad celinaya hay-adda xanaano oo aan filaya idinka shaqo fiican inaad soo qabateen laakiin su-aal aan markii hore qortay oo aan ku weydiin baa jirtay aan hadda ku raaciyo cabdi tahliil adigu nuurey goormee soo gashay hay-adda xanaanona goormee xubin ka noqotaba anigu nuurey waxaan joogaa muddo runtii 25 sano ku dhawaad muddana ka badnaynba xanaanana dadkii wax ka aasaasay baan ku jiray hadda 10 sano kule bilaa ka dhiman baan filaya hadda xanaano laftigeeda marka dadkii wax ka aasaasay baan ku jiray aniga muddadaasna maalinba xaaladeedu meel bay soo maraysa maantana waxaan oran karaa runtii meesha ugu wanaagsan ayay maraysaa marka waktigeena waan shaqeeyaa oo dadka dhalinyarada ka shaqayso dhan xanaana waa dhalinyaro oo wada shaqaala runtii marka waktigeena yaro aan fritiidkeena oon dhehe ayaan gelinaa badanaa waxaan nooga soo baxa dadkuna waad aragtay qofku bilaaaniga waxay bilaash isaga yimaadaan ma jiraan marka waxaa ummadda soomaaliyeedna aad iyo aad bay runtii ayay noo taageeraan oo dad badan baa freewiil ahaan noola shaqeeya marka waa runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo adigu markaad muddo wax saasoo kaletaa ku aas-aasteen oo intii muddana ay soo socdeen hamiinba meel ay ku soo weynaysay aqirka inay wax miro dhala inay noqdaan wax aad iyo aad loogu farxo wey aad iyo aad weliba maalintii habeenkii idaacadda la bilaabahayay iyo habeenkan caawa ah oo aan hadda aan hawada kaala hadlayo farqi weyn baa u dhexeeya runtii waana waxay ahayd bilow wanaagsan iyo dhaxtaal hadda fiican oo runtii ilaah baa ku mahadsan idaacadda voice of oslo waxaan ku leeyahay wehelkaaga ka dhigo oo markasta dhegeyso insha allah haddii aan idmo marka aan seminaarka marka aan qabsanayna xafladda 10 sano guuradana insha allah waxaan u noqonaysaa xubin sharafeed ka mid ah idaacadda voice of oslo aad baan ku salaamaya cabdi tahliil maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad ba aad iyo aad baa kugu mahad celinayaa insha allahu alkariim hawshana halkaas ka wad baan ku leeyahay aad baan kugu mahad celinaya waa mahadsantaha walaal mahadsanid habeenkan caawa ku ahaado habeen qaar iyo wanaag ku wata mahadsanid calaykum asalaam waa tahay kaasi wuxuu ahaa cabdi tahliil maxamed oo khadka taleefonka ugu waramay isaga oo jooga bartamaha magaalada oslo ee waddanka norway runtiina xubin hay-adda xanaano ka mid ah hay-adda xanaano waxaa lagu yaqaanaa inay caawiso ilmaha agoonta ah haddii ahaan leeda kuwa dugsiyada qur-aanka aada kuwa iskuulaadka wax ku barta iyo weliba kuwa iyaga waalidkooda mid dhintay mid la joogo ama hooyaa dhimata ama aabbaha la joogaan ama aabbaha dhintoo hooyadaha la joogaan kuwaasi ayaa caawisaa sidaa maqlayseenna meel badan buu ayay xiriir leeyihiin oo markaasi meelaha deegaanada ay gacmaha ku hayaan iyo kuwa dowladdaba ayay runtii ay ilmahaasi badbaadisan ay ku caawiyaan soomaaliya waxaan rajeynaya inay ciidan la ciidaan carruurtaasi si fiican haddii aan lidmo ilaahay iyaga naftooda cimri cafad allah u barakeeyo annagana kuwa fiican oo markaasi cimrigooda da-dooda ka faa'iidaysta allah inaga dhigo ramadaankana waa noo soo dhaweyahay kheyrka ha lagu dadaalo insha allah barnaamijkii aan caawa aan ku wareysanayna cabdi tahliil maxamed intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan u gudagelaynaa barnaamijyadan kale qeybaha ka harsan waa aftax midnimo idin leh habeen wanaagsan